inta badan xildhibaanada laga soo doortay galmudug ayaa xalay kulan afura oo ay muqdisho ku yeesheen waxay diiradda ku saareen doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo siday aragti midaysan uga yeelan lahaayeen cidda mudan in la dhiso. kuraasta guddoonka labada aqal mid ka mid ah ayaa si gooniya u taabanaya kulanka waxaana uu ahaa kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare. kursigan waxaa 4 sano la soo dhaafo ku fadhiyay Senator Abshir Axmed Bukhari kaas oo aan sanadkan ku jirin golaha. waxay dood u ahayd inuu kursigu sii ahaado mid galmudug laga leeyahay waxaana kulanka fadhiyay dhowr qof oo u sharaxnaa xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare. dadka raadinaya kursigan ee madashii xalay joogay waxaa ka mid ahaa Cabdixakiin Macalin Axmed, Siciid Siyaad Shirwac iyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. waxaa kaloo aan afur ka imaanin balse damac laga soo wariyey Senator Farxaan Cali Gaban wasiirka maaliyadda galmudug oo ah senatarkii ugu dambeeyay ee la doortay sanadkan. kulankii xalay wuxuu ku guuleystay in Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Senator Siciid Siyaad Shirwac lagu qanciyo inay u tanaasulaan Cabdixakiin Macalin Axmed kaas oo 5 sano la soo dhaafo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse sanadkan loo soo wareejiyay aqalka sare. sidoo kale Senator Farxaan Cali Gaban ayaa isna laga soo wariyay inuu la noqday damaciisii guddoomiye ku-xigeenka koowaad taasoo Cabdixakiin ka dhigtay musharaxa kaliya ee galmudug ka socda ee booskan u taagan. waxay kaloo isku raaceen xubnihii joogay kulankii xalay in si buuxda loo garab istaago Cabdixakiin Macalin Axmed oo dadka yaqaana ay sheegaan inuu yahay nin mowqifi ah musuqmaasuq ka caagan oo ku hubaysan aqoon caawin karta aqalka sare oo awoodihiisii uu faramarooqsaday golaha shacabku. hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, xubnaha kooxda waaye arag, hogaamiyaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo xubno jilib culusa oo ka socda Puntland ayaa dhammaan la fahamsan yahay inay Cabdixakiin gacan siin doonaan 26 bishan oo ku aadan maalinta doorashada aqalka sare. in xubnaha kale ee galmudug ka socday laga reebo ayaa la aaminsan yahay inay wax weyn u goyn karto Cabdixakiin Macalin Axmed. golaha aqalka sare waxaa taalla 2 doodood oo waaweyn. mid waa haddii uu Cabdi Xaashi ku soo laabanayo guddoomiyaha aqalka sare in loo baahan yahay inuu xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ku soo baxo qof dhalinyaro ah oo wax bartay oo guddoomiyaha ka xigsan kara socodsiinta howlaha iyo farsamada. midda labaadna waa inuu aqalka sare u baahan yahay mu'allif keeni kara hab uu aqalka u soo ceshan karo sharciyo badan oo awood siinaya aqalkan oo uu Professor Jawaari ka dhigay kuwa u gaar ah golaha shacabka. dadka yaqaana Senator Cabdixakiin Macalin Axmed waxay sheegayaan inuu yahay nin ku habboon inuu xaaladahaas wajaho. aqalka sare 5 sano la soo dhaafay inkastoo awood ahaan la wiiqay haddana waxa uu ka badbaaday inuu ku milmo madaxtooyada sida ku dhacday golaha shacabka. Senator Cabdixakiin Macalin Axmed waxa uu ku jiray xubnihii maanta isku diiwaan geliyay tartanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare. loolanka aqalka sare aad uma xoogana maadaama tirada xildhibaanadu kooban tahay. kursiga guddoomiye ku-xigeenka labaad ayaa ah midka ugu badan ee ay xildhibaanadu isku diiwaan geliyeen maanta kuwaas oo ka socday Puntland iyo Jubbaland. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare waxaa 5 sano la soo dhaafay haysatay Jubbaland. dadka maanta isku diiwaan geliyay kursiga guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaa ka mid ah Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. maxay kula taadiga